dalka Ethiopia oo kaashanaya Kenya baa layidhi ayaa waxa ay ku howleeyeen in ay tallaabo ka qaadaan silsilado xiriirsan oo ay sheegeen inay ka shaqeeyaan burburka dalalka geeska Afrika bay yiraahdeen waa sida ay markaa hadalka u dhigeen Ridwan Hussein oo ah la taliyaha amniga ee xukuumadda Abiy Ahmed ayaa yidhi way u dhamaatay kooxdii Nairobi fadhiday ee huwaneyd buu aragtida gumaysta kuwaasi oo faafinayay buu warar been abuura si ay u burburiyaan dalalka geeska Kenya iyo Ethiopia ayaa isku afgartay buu in silsilada xiriirsan xididada loo siibo Ridwan Hussein ayaa sida hadalka u dhigay Ridwan waxa uu si gaar ah u xusay kooxda Sahan Research iyo waliba Matt Braden xukuumadii farmaajo ayaa iyaduna sida oo kale waxa ay ku dhegneed qolyahaasi iyadoo oo ku eedeyn jirtay in ay had iyo jeer faafiyaan dacaayado iyo propaganda waxay sheegeen Sahan Research inaan ahayn qayb research sameysay ay tahay qayb sirdoona oo loo soo diray inay wadamada geeska Afrika jilbaha dhulka ugu dhuftaan oo ay markaa yihiin bay yiraahdeen qaar wararka been abuurka sameeya iyo burburinta wadamada geeska Afrika oo siday ku eedeyn jireen kooxda farmaajo haddaba sida oo kale haatan waxa ay sheegaysaa xukuumadda Ethiopia kooxdaasi oo khaatiyaan bilahay ay ka taagnaayeen oo dacaayadaha ugu badan iyo markaas propagandada xagga warbaahinta sameyn jirtay oo TPLF taageersanayd dhinaca kalena oo markaas ay ahayd garab dhinaca moogtay taageerada TPLF oo wararka beenta u sameeyay bay yiraahdeen dhinaca kalena ah burinta ay reer galbeedku rabaan inay ku ridaan geeska Afrika qayb weyn ka qaadanaysay marka hadda waxa ay sheegeen in ay markaa dhulka loola simayo kooxdaasi oo gabi ahaanba laga eryayo Nairobi oo sutida loo qabanayo qaarkoodna xabsiyada lagu gurayo waxaana sida oo kale ay sheegeen inay jiraan kooxo kale oo la shaqeeya oo xitaa Soomaali ah bay yiraahdeen oo markaa wararka beenta la sameeya oo hadiya jeer faafiya dacaayadaha ka dhanka ah xukuumadda Ethiopia inkasta oo aan la magac dhabin kuwaasi haddaba si kasta ha ahaatee waxay hadda ay sheegayaan markaasi kooxda Ridwan Hussein iyo xukuumadda Ethiopia in kooxda u adeegaysay reer galbeedka haatan sutida loo qabanayo waxaana sidoo kale jirta in xukuumadda haddaba Kenya iyo Ethiopia imika waa hal heshiisyo badan horta waabay galeen oo dhinaca ganacsiga kaasi oo ah markaasi xitaa qamadiga Ethiopia ay u dhoofin doonto shirkadii Safari ee markaasi xagga telecommunication ama isgaarsiinta Kenyana waa tan Ethiopia share laga siiyay ka shaqaysanayso inta ugu badan markaasi iyadoo hawlgallada ama faa'iidada ugu badan ay helayso adu si kasta ha ahaatee labada hogaamiye ee Abiy Ahmed iyo William Ruto iyo Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea Afwerki afartaasi waa xulafo barnaamijyo horena waa inoo sheegay marka hadda waxay ku faraxsan tahay xukuumadda Ethiopia maadaama Ruto xukunka qabtay wax kasta oo ay uga baahdaan Kenya gudaheeda way tallaabo ka qaadi karayaan dhinaca kale aan u gudubnay Ethiopia maanta waxa dhacay shil weyn oo markaa ka dhacay jaamacadda Hawaas waxaana la sheegay buundo markaasi jaamacadda dhex maraysay in arday ay la go'day dhimasho iyo dhaawacba la soo sheegaya shilka ayaa ka dhacay Hawaas khasaare kala duwan oo sababa la yidhi burburka buundada oo saaka dhacay waxa ka dhashay hal arday ayaa ku dhintay kadib markay duntay buundadu jaamacaddu halka 310 arday ayaa la sheegaya in ay dhaawacyo markaasi ay ka soo gaadheen xagga 20 kamid ah la sheegay in ay markaa dhaawacyo halis qabaan haddaba booliska gobolka ayaa sheegay inay wadaan baadhis lagu xaqiijinayo wixii sababay burburka buundada ayaa duntay ayaa isku xidhay markaasi xarunta jaamacadda ee loo yaqaano Techno Campus halkaas oo ay marayeen markaa xilligaasi arday badan oo imtixaanka 12aad ee galeysay kaasi haatan jaamacadaha lagu qabanayo waxaan hadda la sheegayaa markaasi xitaa socdaalka markii hore isagoo dhib ku ahaa dadka ardayda markaa u kala socdaalaysa dhinaca jaamacadaha tegayay oo imtixaanka fasalka 12aad u galiyay qaarkood oo socdaalku ka cabanayay dumar badan ayaa iyagana la sheegayaa inay ku umuleen iyagoo ku jira imtixaanadii fasalka 12aad sida jiga ka dhacday oo kale jaamacadeeda oo la sheegay gabadhin halka ku umushay xajitay ilaa iyo 10 dumar oo iyagana la sheegay inay markaa ku umuleen oo markaa u fariisanayay fasalka 12aad imtixaankaasi iyo socdaalkii ay socdaalayeenba aduu si kasta ahaatee xaaladda hadda waxa la sheegayaa markaasi in buundada go'day ay ugu dhib badan tahay